بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وحالكم كوا داعينا نصدح قضب وقاقابا قضب كوبات وحكوس أبسني هاي سقوتين تبشي رمضان ومعلومه قدم بمريسة قضب كلامنا وحكاها لنا زكاة الفطر جا أما دقر الصنك قضب صدحنا وحكاها لنا عيد هدي له يدهدو وحول الباء la tiriyo waa dhamaada durba sunnooyinka Ilaahay waxa kamid ah subhanahu wa ta'ala wixii yimaada adduunkan inuu dhaafo oo ka sii gudbo oo ka sii socdo maalin dhow bay ahayd maalinkan soo dhaweynayna bisha Ramadaan lahayn waxaan qaabilaynaa bisha Ramadaan oo in soo gashay yani ma soo dhaweyno martii wanaagsan aan dhahaynay hadda waxaan isu dardaarmaynaa ikhwaani oo aan joognaa waqtigii bisha aan sagootin lahayn dhaqso badan ah oo dhamaan ogaa labada maalmood isu dhawaa maalinkan soo dhaweynayna iyo maalinkan sagootinayna isu dhawaa waa meesha ay Soomaalidu tiraahdo wax kow la yiri waa kooban yahay meesha tiraahdo marka waxaad ogaanaysaan wax walba yaa wadada maraya tusaale ahaan yani cimrigeena ruuxu marka uu dhasho ee loo lagu farxayo iyo waqtiga uu dhimanayo ee loo ooyayo waa isu dhow yihiin marka waa sida maxaan kuna bisha maalmaheeda la tirinayo hadda dhowr 20 ka sii maraysa oo 24 ka maraysa cimrigaageena maxaan ku yiraahdaa bilaha iyo maalmahaas uu ka kooban yahay intaas aad tagaysa Ilaahay waxa ka bariyaa subhanahu wa ta'ala sidoo bishaan u barakeeyay cimrigaana cimri barakaysan Allah inooga dhigo laakiin su'aasha meesha ku jirta waxay tahay bishii Ramadaan aan sagootino laakiin maxaan u dhiibanay oo ku sagootinayna nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si saxiixanka qeyrku ku timid lisaa'imi farxataani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih riwaayada sahih muslimka qofka muxuu ahaa sooman wuxuu leeyahay laba goor oo farxo farxad marka uu maxaan ku yiraahdaa soonkiisa dhameystay oo afurayo uu farxo iyo farxad markuu rabbiga la kulmo subhanahu wa ta'ala waa abaalgudkiisa soonkiisa la siiyo uu farxo mid marka way noo dhowdahay runtii farxadii maxaan ku dhahaa ciidaad way noo dhowdahay farxadii kalena Ilaahay baan ka sugaynaa subhanahu wa ta'ala marka farxadaas maxaa inoo weheliya oo daaca ah oo ka faa'iideysan bisha Ramadaan taas runtii su'aal ah hadii si kala loo dhigo Ramadaanku wuxuu ahaa amaano in lagu amaaneystay sida Allah yiri subhanahu inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula amaanada marka maxaan ku leeyahay bani aadamku qaaday waxa kamid ah waajibaadka iyo faraa'ish bisha Ramadaan marka amaano ku soo gaadhay bay ahayd amaanadii marka ma gudanay oo yaani maxaan ku ma ka soo baxnay sameeyna ka soo bixin jawaabtu waa laba uun haday tahay waan ka soo baxnay oo qofku bisha Ramadaanka waa dadaalay soomida maalinkii iyo habeenkii cibaadaadka iyo quraan akhriska iyo sadaqada iyo ducada iyo dhikriga waa dadaalay haday tahay Ilaahay lagu xamdiyo way subhanahu wa ta'ala waa fajiyay qofka isaga ka aqbalay qarna waa u leeyahay qofkaas inuu ku farxo runtii dhamaanshaha bishu ay dhamaatay qarna waa u leeyahay inuu ku farxo yaani gaarida ciidii uu maxaan ku dhahaa runtii u soo dhawaaday uu soo gaaray laakiin haduu gaabis jiro ikhwaani oo maxaan ku yiraahdaa waxay naga kala dhimanaayeen waa sidaan u badannahay bishii runtii waxa ka dhiman habeenadii ugu fadliga badnaa baa dhiman 5 bari mise 6 bari baa ka dhiman laylatul qadriga habeenadii ku jira dhici karta 10ka dambe lagu jiraa waa 10ka habeen maxaan ku yiraahdaa runtii maxaan ku yiraahdaa ugu khayr badan bisha marka 10ka bari in la dadaalo oo wixii laga gabad falay la soo kabo baan soo dardaarmayna soonka maalintii waa la soomayay quraanka qofka khatimi kara inuu khatimo sadaqa in la dhaxgeliyo ducada in la badiyo dhikriga in la badiyo taas marka runtii fursad meesha ku jirta dhowrka bari ciyaariyeen kugu dhaafin maxaa yeelay garantii ma haysano inaan Ramadaanka dambe gaari doono oo cibaadaysan doono dad badan oo soonkii hore joogay kan ma soo gaarin waa ogtiin maxaa ku dhaca coronavirus khalqiga uu laayay inta leeg yihiin marka laga faa'iideysto insha Allah ta'ala oo nafta hal la dhibo oo hal la tarbiyadeeyo taas marka maxaan ku yiraahdaa runtii meesha ku jirta qodobka waa qodobkii ku saabsanaa soonka iyo runtii maxaan ku dhahaa gabagabadiisa waa wax runtii laga walbahaaro bishii Ramadaanka inagoo masaajidii isugu imanin oo qunuudin wada jir
oo maxaan ku dhahaa mataqaana afurka masaajida la keenin inay saa inagu dhaaftay laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah taala in ku filan oo khayra inaan insha Allah taala u dhiibanay ujeedadii soonka Ilaahay u jideeyay subhanahu wa taala oo yiri la'allakum tattaquuna inay wuxuun ka rumoobeen on taqwa muujinay alla ka cabsi sida soomida maalinka laga soomay maxaan ku dhahaa waxyaabihii waa yani xaraamta ah laga soomay iyo waxyaabihii aan la ogolan laga soomay habeenkiina maxaan ku dhahaa daacad ziyaada la sameeyay biidhnilaahi tabaaraka wa taala qodobka waxa ay raaca walaalayaal soonku hadduu dhamaado waxyaabaha lagu sagootiyo waxa kamid ah in la bixiyo sadaqa in la bixiyo sadaqadan waxa loo yaqaanaa zakat al-fitri wa zakadii afurka waa loo idaafeeyay yani markii la afuro oo soonka la dhameeyo ba zakadan la bixiyaa dagarasoonna waa la yiraahdaa sadaqada marka maxaan ku dhahaa mataqaanaa la bixinayo ee zakatul fitriga ah waxay waajib ku noqotaa qof walba oo muslim ah oo dooni ha noqdo heerada ha weynaado rag ha ahaado dumar ha ahaado yani maxaan ku waajib ku noqotaa waxa shardi ah inuu kaliya qofku inuu muslim yahay koow ee qodobka labaad oo ah inuu haysto ruuxu wax ka badan maalintiisa wuxuu dabka saaran lahaa in ruuxu maalinta ciida intuu karsan lahaa ama wuxuu cun lahaa kaliya hadduu haysto waa cudurdaar buu leeyahay laakiin wax dheer intaa hadduu haysto inuu maxaan ku dhahaa bixiyo zakatul fitriga ba waajib ku ah rasuulkana sallallahu alayhi wa sallam waxa laga wariyay xadiis muttafaqun alayhi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu warda farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir wali Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu farad ka dhigay zakatul fitriga oo ah suus timir ah ama suus qamadi ah على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين تتكاسون فرض كغدغاي رغا دمركا ادونكا حوركا يركا وينكا مسلمين كميدا وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه وحنا امر النبي صلى الله عليه وسلم زكاداس ام صدقاداس ان لا بخيو dadku intayna salaada tukanin salaada intaan loo bixin salaada ciida ka hor in la bixiyo nabigu amray sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka waa farad runtii qofku inuu ogaado oo ku xisaabtamo oo ku baraarugsanaado u baahan weeye oo waliba maxaan ku idhaahdaa waqtigaas uu bixiyo sadaqada marka maxaan ku dhahay xigmadeedu maxay tahay maxaa loo bixinayaa shariicadu runtii waxay leedahay waxyaabo isu eg nin la dhihi jiray Waqiic ibn al-Jarrah oo nin qiimo badan oo salafki kamid ah wuxuu dhihi jiray zakatul fitriga soonka waxay u tahay sida labada sujuudood aynu nidhaahno sujuudu sahwiga salaada u tahay salaada haday waxoogaa iska ka dhaafto oo shaki wax ku yar dhex galo markii salaada la dhameeyo laba goor bas sujuudood baa la yimaada oo lagu kabaas soo ma aha nuqsaanta salaada gashay bay kabtaa marka wuxuu leeyahay zakatul fitriguna soonkii bay kabaan oo isagana wixii ku yimid ee khalal ahaa bay ka kabaan hadalka sheekh runtii waxa uu maqraati ah ibn Maajah wuxuu wariyay nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam inuu yiri يعني maxaan ku idhaahdaa muxuu ahaa zakatul fitri tuhuratan lis-saa'im min al-lagwi wal-rafath wa taahirin qofka saa'imka bay zakatul fitriga waxay u tahay taahirin laga taahirinayo lagwiga iyo wixii maxaan ku dhaxumaan ahaa ee ka dhacay ama ku hadlay wa tu'matan lil masaakiin masaakiintana waxay u tahay quudin iyo raashin la siiyay markaas anagu wuxuu sallallahu alayhi wasallam faman addaaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula qofkii bixiya salaada ciid intaan wala tukanin waa zako la aqbalayo waman addaaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat qofkii salaada ay yani la tukado asoo wali bixinina sadaqa uu bixiyay oo sadaqooyin kamid ah bay noqonaysaa waqtigeeda way ka dib dhacday laakiin wali waa laga rabaa waa inuu marka uu bixiyo marka xikmaddaas ku jirto oo labada faa'iido oo soonkaaga wixii khalalaha ku yimid waa ku kabaysaa masaakiintana maxaan ku dhax xuquuqooda iska gudaysaa zakatul fitriga marka waa waxyaabaha soonka lagu gabagabeeyo ee lagu sagootiyo ee qofku inuu ka diyaar garoobo oo iska habeeyo uu u baahan yahay weey waxa yahay inaan sheego marka maxaa la bixinayaa goormaas la bixinayaa waqtiga la bixinayo waxa la isla ogol yahay waxay waajibtaa markay bishii shawaal bilato yani maanta waa la soomanaa habeenkii markuu gobolku dhaco bishii yani shawaal la arko yani waa waajib ilaa salaada subax yani ilaa salaada yani ciida looga baxayo intaas ay waajib tahay laakiin maalin ka hor laba maalmood ka hor hadii la sii bixiyo waa banaan tahay marka dad maalin ka hor soonka laba maalmood ka hor sii bixisid ahlan wa sahlan haday kula soo gaadhay habeenka ciida ilaa salaada laga tukanayo waqtiga ayaan kula dhaafin waqtiga la bixinayo way waxa la bixinayo taqriibka culimadeena waxay yiraahdeen waa 2 kiilo iyo badh qofkiiba waxa la bixinayo waa raashinka dadku ay quutaan ee loo badan yahay sida bariiska baastada
burka iyo wixii maxaan ku dhahaa mataqan lamida 2 kiilo iyo badh hadeed qof walba laga bixiyo intaas marka maxaan ku dhahaa mataqan ka gudaysa oo qofku maxaan ku idhaahdaa uu kaga dhacaya maxaan ku idhaahdaa waajibkaas uu kaga dhacaya waxa runtii muxuu ahaa marka muhiim ah hadda meeshan aan joogno inaga Mareykanka see loo bixinaya hal mas'alo waa inaad ogaatid mas'aladaasi waxa weeye qiimaheeda ma la bixin karaa bimacnaa 2 kiilo iyo badh meeqa lacag noqon kartaa intaan idhaahdo مثلا $10 تلا يراهدو قف مسكين intaan soo qabtan $10 hoo idhaahdo ama reerkayga markaan tiriyo 4 5 6 10 qof $10 ku dhufo $100 qof miskiin oo meel jooga aan doon $100 meesha ka qaado yani qiimaha iyadoo kharash lacag ma la bixin karaya mise waa in raashin la bixiyo fuqahadu jamhuurtu waxay qabaan maya lacag lama bixin karo waa in raashin la bixiyo Abu Hanifa Imam Abu Hanifa wuxuu qabaa inay qiimaha ku bixi karto oo lacag ahaan u bixin karto laakiin waa qowl aad moodo in laga xoog badan yahay waxa sax ah in raashin la bixiyo oo masaakiinta raashin la siiyo laakiin taayan kaaga khaldaman mid kale oo ah inaad hay'adaha مثلا aruuriya zakatul fitriga sida maxaan ku dhaaharo Soomaalida inaga amuud oo kale مثلا isna hay'adahan oo kale Islamic Relief oo kale hay'adahan dadku waxay ka qaadaan lacag $10 $10 waxaas ka qaadaan qofkii u xisaabiyaan adiga marka hay'adu wakiil bay ka tahay marka lacagta iyada u dhiibtayna zakatul fitrigi in adiga bixisay meehe iyaga wakiil waxaad uga dhigtay inay ka bixiyaan iyagu marka waxay sameynayaan lacagta raashin bay ku gadayaan raashinkaana waxay siinayaan dadka muslimiinta ee aadka u tirada badan ee qaxootiyada ee fuqarada ah bay raashinahan marka ugu qaybinayaan oo siinayaan iyagoo adiga wakiilka ah marka inaad qiimihii bixisay ma aha ee waxaad bixisay raashinkii laakiin cid kale wakiilka ah marka bixisay hadii adigu si toos dadka ahalka iyo qaraabada ah ee baahan ee Afrika jooga intaad isugu dardarto aad marka maxaan ku qof intaad u dhiibto dad raashin gad kadibna yani iga bixisay zakatul fitriga aniga reerkaygaba qofka wakiil buu ka noqon saasuna kaaga bixinaya mana aha midaasi inaad maxaan ku dhahaa tii la diidana aad sameysay oo lacag ahaan u bixisay ma aha yani lacagta waa dhiibtay laakiin masaakiinta raashin baa la siiyay siday sunnadu ahayd tu'matan lil masaakiin iyadoo marka noqotay marka mas'aladaana maxaan ku dhahdaa waa caynka marka waxaan isleeyahay in dadkaas yani muslimiinta ee faraha badan ee baahan ama hay'adahan hadda halkan jooga loo dhiibo ama toos baa loogu diray loo dhiibo oo wakiil ka noqdaan kadib iyagu raashinka masaakiinta gaarsiiyaan saasay ku fiican tahay baan isleeyahay insha Allah ta'ala marka waqtigeedii waa la joogaaye zakatul fitriga meel ku ogow insha Allah ta'ala qodobkaana runtii waa qodobkan rabay inaan kaga hadlo zakatul fitriga iyo umuurtiisa iyo ahkaamtiisa qodobka ugu dambeeya waxa weeye waa ciid ciidii waxa aad u yarba inaga xiga ilaahay waxaan ka baryaa subhanahu wa ta'ala nabad inuu gaarsiiyo ilaahna waxaan ka baryaa subhanahu wa ta'ala inuu ciideeda inuu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo iyo caafiya ciidu waa runtii munaasabad weyn iyo shaciiro weyn oo shacairta islaamka kamid ah wadci laakiin waxay ku soo hagaagtay ciidani ajiib ah oo masaajidii aan la joogin oo meel walba xiran tahay oo coronavirus maxaa laga gabanayo tacaalimtii ciid marka waa sideedii awalan hadii bishii shawaal ay bilato oo soonku dhamaado ama 29 marka ku dhamaato ama 30 ku dhamaatee markuu soonku dhamaado waxa sunna ah in la qaado takbiirta sida Allah yiri subhanahu wa ta'ala walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd iyo maxaan ku dhahaa takbiiraha kale ee badan qofku in la qaado takbiirta markii la qaado subax markuu waagu bariyo oo ciid waqtigeedii la joogo taalimaadkan sameyn jirnay waxa kamid ah waxa sunna ah in la qabaysto la iscarfiyo dhar aad u wanaagsan maxaan ku dhahaa lagu labisto oo marka la xidho marka kadib la aadi jiray meesha lagu tukado ciid iyo garoonka la aadi jiray hadda garoon la aadayo ma jiro qoys walba iyo aqalkooda gurigooda way dadka guriga wada jooga markii familka ahlul baytka ah oo isu wada imaanayaan kadibna waxay tukanayaan labada ragcadood ee ciid bay tukanayaan khudbo uma qasab ma ah haday iyagu isu khudbayaan khayr haday kalena iskuma xidhna salaada ciida iyo khudbada ka dambaysa ee imaamyadu akhriyaan iskuma xidhna jumcada kala ma ah jumcada yani khudba in la akhriyo waa waajib kadibna salaada la tukado laakiin midan waxa weey salaada in la tukado baa la iska rabaa khudbadu marka waa sunna marka in la khudbayo qasab ma ah salaada laakiin waa in marka la tukado ragcada hore 7 takbiirood baa Allahu akbar la dhahaya inta faataxada la akhriin ama takbiirta ugu horeysa lagu xidhayo 6 ka dambaysa ragcada labaadna waa 5 takbiirood marka noqonaysa qofkii marka keligii noqdo reer ba la joogin cid uu tukiyaysanina isaga tukanaya sidaas uu tukanaya
haddii marka maxaan ku dhahaa salaadii ciidda la tukado takbiirtii halkaas ay ku eg tahay sidaasayna ku dhammaanaysaa kaliya sidaan tilmaamay intaan salaada tukanin zakaatu fidrigaagii iska bixiyo maxaan ku dhahaa meel ku ogow marka ciid la isu imanayo oo garoon la aadayo ma jirto ciidan guryaha ha lagu tukado waana sunna maxaan ku dhahaa mataqaanaa arrintaas iyada ihi saasayna fatwoodeen maxaan ku dhahaa mataqaanaayay majaamicda iyo culimada muslimiintu waqtigan hadda lagu jiro marka ciidana saasaa loola macaamulaya insha allahu tacaala intaa kadibna dadka muslimiinta ah isbariidiyaan hana isu hambalyeeyaan iyagoo isticmaalaya telefoonada iyo maxaan ku dhahaa social mediaha laakiin isbooqasho iyo iswareegid iyo istixyaac ayaan la samaynin arrintaa khatarteeda ay leedahay cudurkii aad iyo aad buu u faafsan yahay taana intaasaan ka dardaarmaya haddii ilaahay yidhaahdo gabagabada kelimadayda ilahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala soonkan inta laga aqbalay alla inuu nagu daro ilahina subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu naga qaado culayskan iyo ciriirigan cudurkan na geliyey alla inuu naga qaado alla ka baryayaa subxaanahu watacaala waxaan runtii maxaan ku dhaha mar kale ikhwaani aan baraarujinayaa habeenadii ugu khayr badnaa bisha maadaama lagu jiro laylatul qadrigii maadaama loo aaninay habeenadan inuu ku jiro in daacada lagu dadaalo ducadana la badiyo dadka muslimiinta loo duceeyo ahalka loo duceeyo awlaadda loo duceeyo ilaahay subxaanahu watacaala khayrkiisu waa furan yahay waana badan yahay inaan laga qadin insha allahu tacaala taasaan suuradda daarmaynaa wasali allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wasubxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk